maamulka gobolka iyo degmada iyo mas'uuliyiinta wasaaradda qorsheynta iyo horumarka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ka qayb galay munaasabad ballaaran oo lagu furayay shir lagaga hadlayay tayeynta iyo kor u qaadista aqoonta shaqaalaha ka qayb qaadanaya tirakoobka lagu sameeyo deegaanada kala duwan ee gobolka Saaxil si loo helo tirada rasmiga ah ee dadka ku dhaqan gobolka. kulankan oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda qorsheynta iyo horumarka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ka dhacay holka dhalinyarada iyo Fenko iyadoo ay halkaasi hadal ka soo jeediyeen mas'uuliyiinta ka soo qayb gashay kulankaasi oo ay kamid ahaayeen gudoomiyaha ku-xigeenka gobolka Saaxil ahna kusimaha barasaabka gobolka iyo sidoo kale duqa degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciidin oo labadooduba si weyn u soo dhaweeyay qorshahaasi lagu tiro koobayo dadka ku dhaqan gobolka Saaxil iyagoo si weyn ugu mahadnaqay cid kasta oo ka qayb qaadatay qabanqaabada kulankaasi. marka seminaarkeenan maanta waxaan jeclahay in aad looga faa'iideysto oo cidda faa'iideysanaysa waa cidda fulinaysa haddii aanad wixii baanad fahansanayn dee macnaheedu wax noqonaysa waxba ma fulin kartid wixii aad soo qabatayna waxba kama jiraan bay noqonaysaa marka inaad ka faa'iideysataan oo waxa lagu diraya horta marka hore aad sii weydiisid macallinkaaga taas haday hor timaado maxaa yeelaa taas haday hor timaado maxaa yeelaa sidaa awgeed waxaan ku dhiirigelinayaa soo dhaweynaynaa hawsha ay wasaaradda qorsheynta wado Somaliland ayaa jira markaa Saaxil ahaan ayaa la idin soo xulay inaad soo diyaarisaan ama qiyaasta soo sugtaan intay qiyaas ahaan noqonayso populationka ama mujtamaca ku nool gobolka Saaxil iyadoo sidoo ay sheegay isuduwaha gobolku 12 magaalo iyo 8 tuulo oo miyiga qaabilsan la sameeyay inaad ka soo sarfay garaysaan dadka isku noqonaya 20 goobood. isuduwaha wasaaradda qorsheynta qaranka ee gobolka Saaxil Cabdulla Ismaaciil Yaasiin ayaa si weyn u sharaxay kulankan iyo ahmiyadda uu leeyahay bulshada ku dhaqan jamhuuriyadda Soomaaliland iyo gobolka Saaxil isagoo tilmaamay in wasaaradda qorsheynta qaranku ay ku howlan tahay sidii loo heli lahaa tirada rasmiga ah ee ku dhaqan dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland. haddii aan faahfaahin idinka siiyo barnaamijkan sida wada ogtihiin wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ay ka waday koobiyo 10 bilood u dambeeyay wadanka barnaamijka qiyaasta dadka Soomaaliland population estimation survey barnaamijkaas oo qaybtiisii hore ay soo dhamaatay waxaana uu tilmaamay inuu surveygan uu yahay wajigii labaad isla markaana lagu soo qiimeyn doono guud ahaanba dadka ku dhaqan gobolka waxa uu tilmaamay in shaqaalahaasi ay gaadhayaan ilaa 36 shaqaale isla markaana ay ka howlgeli doonaan ilaa 20 goobood oo ku yaala gobolka Saaxil. Inta kalena mas'uuliyiintaasi waxay ka qayb galeen sidoo kale kulan ballaaran oo lagu kala dirayay shaqaalaha ka qayb qaadanaya ololaha tallaalka oo maalinta baritaa ka bilaami doona guud ahaanba deegaanada gobolka Saaxil. Munaasabadan oo ka dhacday holka wasaaradda waxbarashada ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta gobolka iyo degmada Berbera maamulka wasaaradda caafimaadka xubno ka socday hay'adaha la shaqeeya wasaaradda caafimaadka ee jamhuuriyadda Soomaaliland. hadal kala duwan oo ay halkaasi ka soo jeedeen mas'uuliyiinta gobolka iyo degmada Berbera ayaa waxa ay bulshada u soo jeediyeen inay kaalin weyn ka qaataan sida ay iyagu isu tallaali lahaayeen ubadkoodana ay u tallaali lahaayeen. sidaa awgeed in aad iyo aad u soo dhaweeyno kana faa'iideysano midna maskaxda lagu hayo waxa weeyaan wasaarad bay leenahay wasaaradda caafimaadka aynu leenahay dawladdan oo jirta baynu nahay qaran jira baynu nahay iyo wasaaraddaas iyo dhakhaatiirta ku shaqale ayaa waxaan soo baaray oo inaga soo hubiyay oo inaga soo eegay oo kalsooni nagu siiyay oo inaga gaargaraynaya haday wax dhibaato ay nagu hayaan de qofna qofkiisa kuma sii daayeen tuulooyinkan waxaan arkaa qolyo badan markay yimaadaan oo yiraahdaan in waan soo irnaabay yiraahdaan waa waqti tuulooyinka marka loo baxo soo irna waa xaqiiqi weyn maxay soo horta la fahansiiska ka maqan marka waxaan leeyahay hawshan waa hawl inoo taala insha Allah ta'ala ilaahayna hayna fahansiyo taas ugu muhiimsan. waxa iyaguna sidoo kale halkaasi ka hadlay mas'uuliyiin ka socotay wasaaradda caafimaadka jamhuuriyadda Soomaaliland oo iyaguna ka warramay tallaalkan iyo ahmiyadda uu leeyahay bulshada Soomaaliland iyo sida loogu baahan yahay in laga ciribtiro cudurka dabaysha oo isagu ah mid soo noqnoqda. xubno ka socday hay'adda caalamiga ah ee WHO ee la shaqeysa wasaaradda caafimaadka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa iyaguna tilmaamay in ay sanadkan ay ku tala jiraan in dad aad u tiro badan oo kala duwan laga soo tallaalo cudurkaasi isla markaana la gaarsiiyo goob kasta oo ka tirsan deegaanada kala duwan ee gobolka Saaxil. maalinta baritaa ayaa si toos ah u bilaabmi doona ololahaasi tallaalka iyagoo sidoo kalena fariin u soo jeediyay bulshada waxay tilmaameen in loo baahan yahay in laga qayb qaato sidii lagu dhiirigelin lahaa cid kasta oo kamid ah bulshada ka qayb qaadashada tallaalkaasi. Mukhtaar Cabdiraxmaan Maxamuud, telefishinka qaranka Soomaaliland, Berbera.